oo ay ugu horeeyaan howlwadanadii jaamacadda wasiiradii oo ugu horeeyay wasiir Qolombe saaxiibkay oo shaqo badan la qabtay sana khiraasiyo gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka tiimkii kale ee shaqada nala waday wasiirada dhammaantiin waa ku mahadsantihiin intaa kadib jaamacaddan madaxweyne waxaa leedahay jaamacadda City Code waxaa la aasaasay 2016 waxaa lagu aasaasay iyadoo ah college ama machad loogu talagalay in ardayda jaamacadaha ka baxa koorsooyin professional loogu sameeyo kadibna muddo kadib iyadoo markaa dhowr qof ka shaqeynayeen waxaa laga dhigay markaa institution weyn oo magaalada dhexdeeda ku yaal waxay noqotay meel dadkii aad wax ugu barteen oo ku baraareen oo runtii aad loo jecel yahay jacayl la jecel yahay dadkeedu jecel yihiin baana halkan soo gaarsiisay institutionadii ka horeeyay ama kuwii gadaasheed la asaasay qaarkood waa saqiireen waa jaamacad horumar weyn sameynaysa waa jaamacad diyaar u ah inay dadka u adeegto laakiin aysan ka raadin profit ka raadin waa jaamacad dadka dayarta ah taakulaysa waa jaamacad shaqo abuur samaysay oo runtii shaqo abuurka ugu ballaarnaa qayb ka ah dhismahan arkayso madaxweyne waxaa lagu dhisay baaxadiisu intaa leeg yahay oo dhulku ku fadhiyo uu yahay 2 hektar meelahaas waxaa lagu dhisay oo lagu sameeyay waxay ahayd isku tashi maamulka jaamacadda iyo ardayda dhiganaysay ee isku tashadeen wixii ardayda laga ururinayay ay bixiyeen baa waxa weeye loo beeqaaminayay oo lagu baalkeenay dad ka shaqeeya hanti kama doonaan guriga kama dhistaan waxba kama dhistaan wixii ka soo baxay ayada lagu celiyaa waa jaamacad runtii barowd ah oo la oran karo maaragtay baahidii rasmiga ahayd oo jirtay bay ka shaqeysaa intaas kadib madaxweyne jaamacaddan waxaa ka baxay dad gaaraya 2500 waxaa hadda dhigta arday gaaraysa 850 waxay scholarship siisaa dadka danyarta ah oo aan awoodin oo almost sanad kasta 200 arday ku dhow oo scholarship baa la bixiyaa oo free isugu jira iyo half isugu jira waxyaalaha marka saaciday oo halka gaarsiiyay ka mid tahay intaas kadib madaxweyne waxaan rabaa inaan kula wadaago in jaamacaddu haddana markii hore 2 kuliyood ay ahayd higsigeeduna ahaa IT-ga iyo caafimaadka oo markaa daraasad la sameeyay lagu ogaaday inay yihiin baahiyaha shaqada ugu badan ee ka jira Puntland saasaa keentay marka in kuliyadaha xoog la saaro sanadatan waxa xoog la saaraya jaamacadda higsigeeda ka mid ah wax soo saarka dalka oo ugu horeeyaan qaybta xoolaha qaybta beeraha qaybta kalluumaysiga waxaan rajaynayaa horumarkii aan ka gaarnay qaybta caafimaadka iyo qaybta IT-ga in ayadana ka gaari doono insha Allah hadii la yiraahdo waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddiga boorka jaamacadda oo ugu horeeyo Cabdiqaadir Axmed Maxamuud oo runtii xil weyn iska saaray in fiiliyada la sameeyo wax soo saarka in la sameeyo beeraha oo runtii hadda xoogoodu socdo oo maaragtay hadii aan ka gaar lahayn ku tusi lahayn meeshii loogu talagalay beeraha meeshii loogu talagalay xoolaha oo xoolii already ku xiran yihiin qalabkii loo diyaariyay oo maaragtay beeraha ardayda ay ku sameyn lahayd loogu talagalay waxa halka fadhiya Mubaarak Saciid Ibraahim oo ah ragga ku xeel dheer Puntland beeraha ku xeel dheer wax badan oo shaqo ka soo qabtay Mubaarak hal mar daa istaagi karto si tiifu ku arkaan wuxuu icon u yahay runtii beeraha Puntland wax soo saarka Puntland jaamacaddana waa la shaqeeyaa qaybtaas hadda qayb ka yahay oo inaan wax soo saarno product fiican soo saarno insha Allah baan diyaar u nahay inta kadib sanadada soo socda insha Allah proposal kayaga iyo meesha wax noo marayaan madaxweyne oo kula soo wadaagi doona waana ku soo gudbin doona hadii la yiraahdo madaxweyne jaamacadda baahiyaheeda haddaan iyar ka taabto jaamacaddu xoogaa meel wuxuu ku taalaa durugsan meesha ay ku taal waxa weeye meel xoogaa wadadii magaalada ay isku xir lahayd xoogaa ka fog tahay waxaan kaaga mahadnaqaynaa madaxweyne mashruuca weyn ee wadada tan halkan aan marisay oo runtii anaga wax weyn na tartay gudoomiyihii degmada ima muuqdo oo maaragtay oo qayb ka ahaa halka wadadaas wax weyn bay anaga noo tartay xaafadii wax weyn bay tartay
hal cilad baa jirta oo ah isku xirkii wadadatan iyo wadada kale isku xirkoodii baa meesha ka baxsan oo naga maqan taana insha Allah madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad maaragtay nagala shaqeysaan oo madaxweyne aad hawshaas magaalada dhanbe muhiim u tahay wadadani waa sida muuqata waa xaqii magaaladu ay u soo fidaysay ama magaalada u soo baxaysay weey marka wadadaas waxaan rabnaa madaxweyne inaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo aad maaragtay qayb nagala noqotid maaragtay inay la isku furo jidkan oo noo jira 200 oo tallaabo isagana waxaan rajaynayaa laami saarno waa u diyaarinay wixii anaga tabarteeda ahaa madaxweynaha iyo dawladda waxaa ka codsanaynaa qayb ka noqdaan nagala shaqeeyaan isagana waa ka codsanaynaa waxaa kaloo aan rabaa inaan hal mar ku darsado wadadan jidkan waxaa la yidhahdaa soddonka wuxuu ku yaallaa galbeedka jid kaloo soddonka la yidhahdo ku yaalla baa jira oo isna bari ku yaalla markii la yidhahdo soddonka iyo soddonka xoogaa confuse bay abuurtay marka waxaan codsan lahayn jidkan in magaca laga bedelo oo haddii ay suuragal noqonayso loogu magac daro madaxweynaha Puntland oo la dhaho jidka madaxweyne Cabdullaahi Dani loogu magac daro haddii aynan suuragali karinna jidka jaamacadda siidkooda loogu magac daro oo la jaamacadda siidkooda haddii kalena qof kale oo taariikhi leh in loogu magac daro annagu si aad waxaan u support gareynaa tiimkayga xaafadda degani in loogu magac daro madaxweynaha sababtoo ah laba Facebook soo dhameeyay face ba hadda horay face-kana waa dhameynaya waa isagoo shalay dhagax dhigay khamiistii buu dhagax dhigay intaa kadib madaxweyne jaamacadaha waddanka ka jira waa ogtahay duruuf adag baa lagu shaqeeyaa waxa ardada wax ka bixiya waa waalidka siyaasadda lagu shaqeeyana waxaa iskale dawladda qaybta waliba u qaabilsan oo ah wasaaradda waxbarashada waxaa jira madaxweyne urur soo jireen ahaa oo jaamacaduhu lahaayeen Puntland oo ay ku midaysnaayeen in jaamacadaha gaara ururkii isku maaragtay xagliyeen oo yiraahdeen ururkii gaar u sheegteen halkii ururkaasi uu ahaa urur jaamacadaha Puntland oo dhan ee hay'adaha xubin ka noqdaan laakiin jaamacadaha waxay yiraahdeen anaga gaar u sheeganayna wax suuragalna ma aha in wax ummadda Puntland oo dhan xaq u leeyihiin in qolo gaar sheegato oo iyadu tiraahdo anaga noo xiran yahay arrinkaas waxaan aad uga mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeya wasiirku oo ku xigo wasiir ku xigeenka wasiir dawlaha agaasimaha tacliinta sare oo dhammaantood maaragtay qiray in ururkaani uu sax ahayn loona baahan yahay inay jaamacaduhu isku laabtaan oo ururkaas si dhammaystiran loogu wada shaqaysto ama xubin looga noqdo laakiin hadda sida muuqata ururkii cid gaar ah maaragtay rabta inay iyagu isu xagliyaan oo iyagu maaragtay sheegtaan wax suuragalna maaha haddii maaragtay madaxweyne arrinkaana codsi ahaan waxaan ka codsanaynaa in ururkaas dib u eegis lagu sameeyo in ururkaas uu noqdo urur dhexdhexaada oo jaamacadaha Puntland ay leeyihiin sababtoo ah wuxuu wataa magacii jaamacadaha Puntland buu wataa waa magaca waa ururka jaamacadaha Puntland marka cid gaar uma sheegan karto ururkaas waa urur loo siman yahay waa urur lagu mideeyay jaamacadaha dhan xaq u leeyihiin Puntland ku yaal cidii gaar u sheegatana hadda waa cid rabta inay kaligood dhahaan anaga jirna dadka lama jiraan markii qofka marka si kale aad uga dheereyn kari weydo oo waxbarashadii iyo tartankii kaga dheereyn weydo in meelahaas kale la galo waxa weeye waa wax kale noqonaysa intaa kadib inaan khadka dheereeyo ma rabo waxaan aad ugu mahadnaqayaa tiimka ardayda oo ugu horeeya guddiga ururka ardayda oo ay ka joogto xamdi maaday xamdi hal mar istaag xamdi waxaan rabaa hal mar loo sacbiyo shaqada xoogga leh hayso iyada tiimkeeda oo mahadsantahay intaa kadib madaxweyne dhammaan shaqaalaha iyo tiimku kulligood iyo ardaydu waa hawlkarro arday badan oo aad u shaqaysaa jira urur baan leenahay ardaydu ay dooratay oo